waxaan halkan ka cadeynayaa runtii inaan jaadku cidna u xidhnayn nuxurka saxaafadan aan maanta ugu yeedhay waa intaa weyn jaadka cidna uma xidhna jaadku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha faraha badan leh dadka Soomaaliyeed quutaan anuu quudkuma shay qaade ay quutaan ay damcaan inay dibadda ka soo dhoofiyaan bariis baan soo dhoofsanaa galay waxa soo dhoofsanaa baasto digaagadan soo dhoofsanaa hadhow waxa ku xigta doona muus iyo hilib adin la inoo keeno wixii aan cunayno oo dhan waxaan dad damcay in dibadda looga keeno ya anigu ma oran kara maanta bariisku hebel buu xidhan yahay baastada hilib kale u xidhan tahay kaasina kaas u xidhan yahay ma oran karno jaadkuna waa saas oo kale waxa qofka Soomaaliyeed ee doonaya inuu ka ganacsado sida ganacsiyada kalaba ka ganacsada jaadka waxa looga baahan yahay inuu sharcigeeda soo maray kaliya macnaheeduna yahay hadaa doonaysa inaad qaadka ama jaadka nabas loo yaqaan ka ganacsato laysan baad soo qaad ruqsadaad soo qaadani wasaaradda ganacsiga ku shaqada leh baad u tagi ayaga nidaamka ku akhriyo doona waad soo qaadan dibeetana jaadkeen arinta kale ee aad mas'uulka tahay waxa weeye in aadan soo qarin jaad baasita tiraahdo diyaaradu jaad baasita tiraahdo cid waliba ogaato jaad inasido jaadkaasi marka cashuurtiisa iyo arrimihiisa ugu tala gasho si hufan oo hagaagsan halka u soo mariso customka keento lagu cashuur intaas uma laga raba laysan soo qaado qaadkana laga cashuur sida waxyaalaha kala wadaan cashuurana wax inta dhaafsan oo muwaadin Soomaaliyeed laga doonayaa ma jirto adigu marka ama diyaarad soo saar ama dameer soo saar ama awrka ku soo qaad ama la soo lugay mid aad doonto sameeyo jaadku waa furan yahay meesha doonto ka soo qaad waxaana loo baahan yahay marka nidaam baa leeyahay baahaya jaadka dadka ka baaya mushtarow sida arrimaha kaleba waxa idin fiican inay ishabaysaan oo idinku isagaajisaan kol haddii wadda kale wax ka soo iibinaysaan waxa idin fiicnaan lahayd taasina waa arrin idinka idin taalweey waxa idin fiicnaan lahayd in cidii doonaysa inay meesha tagto ay ishabeeyaan isagaajiyaan oo iyaga oo wada socda ay meesha wax ka soo iibsadaan ya ayaa sicirkiina arrimihiina iyo negotiation-kiina waa dhib yaraanaya laakiin haddii jaantaa furan ay noqoto jaantaa rogan ya idana oo meedada kaydin taalweey anagu wadan caawin karana waan caawinaynaa haddii jaantaa rogan noqoto oo dad oo dhan xagga tagaan qolada xagga joogta marka iyaga noqonaya price makers waxa la yiraahdo iyaga oranaya price-kayga waa inta dibeetana waa inuu kala badino price-ka cirka jooga ayaa nin wax soo qaado wada khasaari doonta kulliyo haday dibadda ka soo iibsanay in nidaam lagu socdo ayuubana anagu idin la talina waa shaqtaalo laakiin baa mushtarigu kama xaransana inay waxay doonayaan ka ganacsadaan maadaama asloon waxaas ay yihiin wax xalaal ku soo galay xalaal ku socda sharci lagu soo iibsaday sharci lagu soo cashuuray ya intaasaan doonayaa maanta inaan idin sheego cidii doonaysa inay tafaasiil u baahan ama cabasho haysa wasaaradda maaliyadda ee Shangaani bay iman karaan ya halkan committee baa ka samaysan guddi baa ka samaysan guddi khilaafaad wixii ah ee deegaan sharci ah xalilaysa ya cidna cid lagu qasbi maayo laakiin inta aan ku soo sheegay hadii cid ku diidaysa jirto inta aan soo sheegay cid diidaysa hadii jirto waa ku soo dhaweynayna halkan kaalay ama wasaaradda gaadiidka u tag iyo diyaaradaha wasiir Omar labada iyo diyaar baan u nahay inaan wixii anaga naga khuseeya inaan kula xaliilo muwaadin Soomaaliyeed